daawadayaal haatan waxaan u baxnay deegaanka Goobeyn oo kamid ah deegaanada hoos yimaada degmada Kismaayo. deegaanka Goobeyn Kismaayo waxay ka jirtaa dhanka waqooyi 12 kiiloomitir kaliya. waa deegaan ku caan ah xoolo dhaqashada sida geela, ariga iyo lo'daba. waxa kale oo caan ku tahay dhanka beeraha. Goobeyn waxay kale oo caan ku tahay dalxiiska. waa meel aad u qurxoon. waxaa kale oo mara webiga Jubba oo ka yimaada buuraleyda waddanka Itoobiya. waxay leedahay goobo cajiib ah marka loo fiiriyo guud ahaan Soomaaliya oo dhan. daawade halkan ku muuqato waa meesha ugu cajiibsan. waa meesha ay biyaha macaan ee webiga iyo biyaha badda ay iskaga darsamaan. marka dul istaagto waxaad arkaysaa biyihii macaana ee webiga iyo biyihii badda oo isku darsamayn laakiin isfeer taagan wax kala midaba. waa meel dhifi naadir ku ah 54 dal ee qaaraddan Afrika ay ku wada noolnahay. waa goobaha ugu cajiibsan ee Rabbi subxaanahu wa ta'aala ku manaystay waddankeena Soomaaliya. soo saara barnaamijka waa aniga Maxamed Axmed Xuseen. barnaamijka lamad intaan ku kulmi doono daawadayaal waxaan iga tagayaa sidaas nabadgelyo.